يبان كان وحن راينا وقفيسي راليان كان قوي ورنا قبيودا kulanti wanaagsan kusoo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment waa mar kale muuqaal aan ugu talagalnay daawadayaasheena haddaan nagu cusub tahay subscribe noo saar isla markaana haddii muuqaalkan aad ka hesho like noogu dhufo qaybta ka helitaanka ay noo muujinaysaa si aan muuqaalo kale aan u soo gudbino dad la wadaagi kartana asxaabtaada u sii share garay maantana muuqaalka waa xubinteenii toosiyaha jacaylka tani markii uu soo bilowday isticmaalka adeega internetka ayaa waxa isbedel badan ay jireen iyadoona dadka qaarkood ay ku kala aragtiyo duwan yihiin hanaanka jacayl iyo adeegsiga internetka oo yaa yiri jacaylka internetka ku bilowda waa biyo kama dhibcaan aan weligiis guuleysan kusoo dhawaada muuqaal kale oo aan uga hadlayno xubinta toosiyaha jacaylka isla markaana aan kusoo gudbinayno saameynta uu leeyahay cishqiga ka dhex dhaca dhinaca internetka waa hubaal in waayihii dambe ay kordheen dadka dunida isticmaala baraha bulshada ha noqoto aaladaha Facebook, WhatsApp, Imo, Viber, TikTok iyo weliba YouTube inkastoo mareegaha netka ee la isku shukaansan karo ay badan yihiin haddana udub dhaxaad waxa uu ah WhatsApp iyo weliba Imo oo qofkii nambarkiisa aad hayso ama kaaga uu hayo kaliya uu ku soo qaban karo sidaasna aad ku wada hadli kartaan ha yeeshee waxa iyagu dadka qaar ay sameyn karaan fursado kale oo ay taasi bedelkeeda sameyn karaan Facebook ayaana ah kan ugu badan ee dadka ay asxaab badan ka samaysan karaan ku madadaali karaan kuna hasaawi karaan shaqooyin kalena lagu qaban karo 10 sano ee u dambeysay waxa kordhay gabdhaha iyo wiilasha adeegsada internetka aaladaha kala duwan qaaradda Afrika marka laga soo tago Latin America iyo weliba Yurubta inteeda kale waa ay yirihiin dadka waqti badan geliya isticmaalka adeega internetka taas oo ay kaga dhigan tahay shaqooyinkii waxbarashada inay ku mashquulsan yihiin balse Afrika waa meesha ugu badan ee laga yaabo in qofka 18 saac ka badan uu online noqon karo in la isku sheego been iyo huuha ka fog wax uusan ahayn qofka iyo hanti uusan haysan waa mid ay dadka badankood ka dhaxleen ku wada sheekaysiga internetka hase ahaatee taasi ma doorin karto ama ma beenin karto dad daacadnimo ku jirto oo iskula xiriira arrintaas bedelkeeda sameynta saaxiibo hawada isku arkay balse weligood aan wada kulmin ayuu internetka sahal ka dhigay iyagoo ugu dambeyntii qaarkood isku yimaada kadibna ishor fariista ogow daawaday inay jiraan dad dhinaca wanaagsan kaga faa'iideystay isticmaalka internetka iyo hasaawaha lagu sameeyo oo aleedankiis inta isguursaday isku aflaxay caruur iyo farxadna ku helay welina wada jooga marunba in jacaylka internetka heerkaas gaaro oo qalbiga laga dareemo sidaasna baholiyow aad u qaado qof aadan weliga kulmin dabcigiisa maqal ka badan aadan aqoon u lahayn ha waa run su'aashaas jawaabteeda marka aanu soo koobno waxa la isku jeclaado ayaa dhowr sifo lagu tilmaamaa waxa jiri karta qof aad sheekadiisa ka hesho qof qosol kaaga keeni kara isla sheekaysigiina cod dareen leh oo aad hesho xilliga uu kula hadlayo qofka iyo qof kuu muujiya farxad badan aad dareento inta aad wada hadlaysaan maqnaanshihiisana aad u dhararto iyadoo intaas oo caqabado iyo weliba faa'iidooyin internetka ku hasaawidiisa iyo jacaylka laga sameeyo ay jiraan haddana dad baa rumaysan in guuldarradiisu ay badan tahay netka iyo weliba jacaylka lagu sameeyo gudaha daawadeen intaaseen ku soo gabagabeynayna xubinta toosiyaha jacaylka Salma Vlog and Entertainment ayaad ka daawanayseen waad ku mahadsan tahay inaad na daawatay oo muuqaalkan aad la socotay haddaad ka heshay like
noo saar si ay dhiirigelin noogu noqoto. intaan dib dambe isku arki doonno muuqaalkan mid ka xiga, sidaas iyo nabadgelyo. waddaadigu badanaa muuqaagu dheeraay intaadiga ag maqantay masexdu habeenkii waan soo mirkacayaa mugdiguna habeenadan ila sii madooba yaanan madi ahaaniye mar wadan jeclaaye kala maalmimayne maru nabad ku soo